الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسي كمida casharadeenii taxanaha ee ku saabsanaa qisasun wa cibar, qisooyin iyo casharo laga baranayo iyo cibrooyin ay tahay in wax lagu qaato. qisadeenna maanta waa qiso waxoogay dheer, aadna u layaab badan. waa qiso lagu sheegay fi lqur'aani alkariim: qutila asxaabu اlأkhduud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. نبينا عليه الصلاة والسلام qisadaas iyadoo dheer oo aada u faahfaahsan ayuu sheegay. qisadaasi waxaa wariyay imaamu muslim fii saxiixihi min xadiidi suhayb radia allahu canhu. wuxuu uhi nabigeeni moxamed calayhi الsalaatu wasalaam: kaana malikun fi man kana qablakum wa kaana lahu saaxir. ummadii idinka horeeyey waxaa ka mid ahaa nin boqora oo dad u taliyo oo dal xukuma. ninkaasi wuxuu lahaa nin sixiroola ah oo falalow ah. wakhtigaa hore boqorada iyo madaxdu waxa ay mulkigooda iyo madaxtinimadooda ku sugi jireen oo dhidibada ugu adkeyn jireen inay cuskadaan ay ictimaadaan nimankaa saaxiriinta ee falalowga ah. nimankaasi markaa dadkay u sixiri jireen oo indhasarcaad ay u dhigi jireen, taasoo markaa dadka ka dhigta kuwa daba socda ninkaa madaxda oo marnaba aan ka hor iman. waxaanay ugu sawiri jireen dadka nimanka madaxdii inay yihiin ilaahiyo mudan in la caabudo. markaa ninkan boqorkii wuxuu lahaa nin sixiroolo ah. ninkaas sixiroolo ahi markii uu da' noqday ee uu weynaaday, wuxuu la hadlay ninkii boqorka ahaa ee dadka u sixri jiray. waxaanu ku yidhi: waan weynaaday, waxaanan doonayaa cilmigan in layga dhaxlo, inaan dhallinyaro ii soo diro sixirka aan baro. inaan dhallinyaraabuu u diray. taasina waxa ay tusinaysaa dadka ahlu sharka ahi waxay jecel yihiin sharkoodu inuu sii socdo oo cid ka dhaxasho oo sii wado la helo. dadka ahlulkhayrkaabaa u mudan inay jeclaadaan khayrka iyo wanaagga ay wadaan iyo waxtarka ummadda ay u leeyihiin inuu sii socdo oo la sii kala dhaxlo oo laysu sii dhiibdhiibo. dadka cilmiga iyo aqoonta wanaagsan ee sharciga ah iyana haddaan laga baran, cilmigu waa baaba'ayaa, deetana dadku jahli bay isugu baxayaan. dadaan culimo ahayn baa culimo u sheeganaya suu sheegay nebigeenu calayhi الsalaatu wasalaam. kadibna waxbaa la weydiinaya, waa fatwoonayaan oo jahli bay ku fatwoonayaan. iyagu waa lumayaan, dadkana waa luminayaan. inankaa dhallinyarta ee loo diray ninkaa saaxirkaasi uu sixirka uga reebo, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray, ilaahay baa arrinka xikmad ka lahaaye, inuu dhigay waddadii sixiroolaha uu sii maraayay nin raahiboo caabida. inankaasi maalin maalmaha ka mida ayuu ninkaa la fadhiistay, hadalkiisii diiniga ahaana uu dhegaystay. hadalkiisaasi aada iyo aada buu u cajabiyey, ula dhacay. mar kastoo ninkaa saaxirka uu ku sii socdo, wuxuu sii mari jiray ninkaa caabidka ah ee dadkana waanin jiray. marka waxaa dhici jirtay inuu dee ku habsaamo mararka qaarkood. ninka saaxirkii markaa waa xisaabin jirayoo isaga laftiisa wakhtigaa eryanayay oo wuxuu islahaa intaanad dhiman cilmigan ha lagaa reebo. markaa markuu u taga uu ka habsaamo waa garaaci jiray.
maalintii dambe sida nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay ninkii raahibka ahaa ee uu ku kalsoonaaday ee uu jeclaaday ayuu arrinkaa uga cawday wuxuu yidhi markaan kula fadhiistay aan ku dhegaysto sixiroolihii aan u tago maalin walba way garaaca wuxuu u sheegay xeelad la odhan karo waa tab dagaal oo cadowga aanad awood u lahayn ee aanad iska celin karin dhibkiisa lagaga baxsan karo wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa haddaad ka baqato sixiroolo inuu ku dhibaateeyo ehelkaygiibaa iyo qoyskaygiibaa habsaamiyey qoyskaagu haddii inay ku dhibaateeyo inaad ka baqato ay kudhaa xaggaad ku habsaantayna waxaad ku tidhaahdaa sixiroolihiibaa iyay habsaamiyey sheekhii cilmiga ii dhigayay marka waa xeelo dagaal alxarbu khudca dagaalkuna tab dagaal iyo xeelado dagaal ayuu leeyahay waana mid ay shareecada ogoshahay waayo ninkan awood uma laha inuu iskaga celiyo haddii xaqiiqadu sida ay tahay uu u sheegana laga yeeli maayo bal haddii la ogaado waxa dhacaya waxaa qisada ku sugan aynu maqli doono maalin maalmaha ka mida si ilaahay subxaana wa tacaala arrinkiisa u muujiyo wuxuu qadaray bahal weyn oo dadkii waddada isu taagay oo dadkii o dhan waddada ka xidhay ayuu inankaasi ku soo baxay bahalkaasi muxuu ahaa lama sheegin ma libaax buu ahaa ma bahal hoosuu ahaa arrintaasi inanka waxay u noqotay fursad uu ku kala garto labadiisa macallinka saxsan masaaxirkaa saxsan mise raahibka koodeebaa xaq ku taagan dhagax buu qaatay dhagaxii markaa intii aanu ku tuurin ilaahay buu subxaana wa tacaala baryey allahuma in kaana amru raahibi axaba ilayka min amri saaxir faqtul hadi daaba buuri ilaahu ninkaa raahibkaah waxa uu wade uu ku socdaa haddii uu yahay mid ka saxsan oo aad ka jeceshahay wuxuu sixiroolu wado dhagaxa yar ku dil daabadda xayawaanka weyne dadka waddada ka xidhay si ay dadku waddada u maraan ilaahay awood isagu muu sheegan ilaahay buu subxaana wa tacaala kaalmaystay dhagaxii buu ku tuuray dhagaxii ayaa daabaddii ama xayawaankii weynaa ee dadku ay u maaro waayeen dilay saasaanay waddadii ku mareen wuxuu u yimi ninkii raahibka ahaa arrinkaa dhacay buu uga warramay raahibku wuxuu yidhi ey bunaya anta alyowma afdalu minii inankaygoo maanta adiga ayaa iga wanaagsan oo iga fadli badan wanaaggaagu waa heerkaasuu gaadhay ilaahay subxaana wa tacaala uu karaamadaasi uu kaa muujiyey waqad yakuunu aalibu afdala min mucallimihi waa mid dhici karta ardaygu inuu noqdo mid ka sarreeya mucallimkiisao kaba aqoon bata ama fadliyada iyo wanaagyada kale dheeraada arrinkaagu maanta heerkaasuu gaadhay aada arkayso ilaahay waa ka ducadaadii saa u aqbalay marka waa lagu imtixaami doonaa waa imtixaanku dadka wuxuu u kala badan yahay say u kala wanaagsan yihiin ashaddu الnaasi balaaءa alambiyaau uma alamhalu faاlamhal nebigeenni maxamed ba calayh الsalaatu wasalaam sidaa yidhi dadka waxaa ugu imtixaan daran oo imtixaanka ugu adag la mariyaa nebiyada kadibna sidaa dadku ay u kala wanaagsan yihin buu imtixaanku ugu kala badan yihi fain ibtuliita falaa tadulla calaya buuhi waan kula dardaarmayaaye haddii lagu imtixaamo oo lagu qabto kolley cidda aada wax ka baratay waa lagu weydiinayaaye dowladaha waxaa lagu yaqaanaa markay qof qabtaan isaga un arrinta kuma ekaysiiyaan ee arrinka way raadraacaan oo arrinkaasi masderka iyo isha uu ka soo fulay ee uu ka soo baxay inay ogaadaan bay isku dayaan si ay arrinka u soo afjaraan oo gunta ay uga maraan marka hay sheegin buu yidhi inanka ilaahay baa subxaana wa tacaala karaamaad ka muujiyey wuxuu u ducayn jiray
dadka indhaha le indha la-aanta ku soo dhashay kuwa baraska qaba xanuunada kale ayuu dadka ka daweyn jiray arrinta noocaasi marna karaamay noqon kartaa ilaahiya marna waxay noqon kartaa talbiisaad shayطaaniya oo qof kastoo waxyaabaha noocaasa laga arka lama odhan karo waa weli ilaah oo saalixa waa in xaalkiisa la eego calaa ayi xaalin huwa xaaladeeba qof ku sugay haddii qofkii macaasi iyo munkaraad iyo wax ilaahay ka cadhaysiinaya daaweyntiisi iyo arrimahaasi uu dhex wado lama odhan karo arrintaasi waa karaamo iyo wax ilaahay uu ku maamuusay oo qof fisqi ku dhex jira iyo maa yukhaalifu sharca allah iyo kabaa'ir laguma sifayn karo ficilkiisu inuu yahay karaama min allahi subxaana wa tacaala laakiin haddii uu yahay qof toosan oo qofka baatinkiisa inagu ma ogine iyo qalbigiisa iyo inta qarsoone ficilkiisaasi guud uu yahay alsalaax waalistiqaama toosnaan iyo hagaag wax sharcigii khilaafsan oo ilaahay ka cadhaysiinaya aan lagu arag waxaa la odhan karaa waa karaamo ilaahay subxana wa tacala arrinkaasi uu ku karaameeyey nin ay boqorka saaxiib ahaayeen oo la fadhiisan jiray baa indhabeelay wuxuu maqlay inuu jiro inankaa dadka daweynaya hadiyado aada u fara badan isagoo wada ayuu u yimi inankii wuxu uhi waxaasoo xoolo aad arkayso adigaa iskale laakiin shardiga ku xidhan waa haddaad ishaafido oo dad la qabsaday inay caabudaan cid aan ilaahay ahayn oo haysta inay awoodo makhluuqaadka qaarkood ay leeyihiin awoodda ilaahay oo kalea sida inay shifaa bixiyaan oo kale inanku wuxuu ihi innii laa ashfi axada anigu awoodaanan lahayn sheegan maayo cidna ma shaafiyaanu inamaa yashfi illaahu ilaahu baa shaafiya haddaad ilaahay rumayso fursad dacwadeed buu uga faa'idaystay oona tahay dhakhaatiirta iyo dadka qur-aanka ku daweeya ama geeduhu inay ka faa'idaystaan oo dadka weliba ay xagga caqiidada aada uga dhisaan dadka idhahdaan ilaahay ku xidhma ilaahay keliyeeya qardhaasaha iska daadiya atacalluq bigayr illahi iska ilaaliya ilahay cid aanaad ku tacalluqdaan ilaahay ku xidhma ilaahay barya wuxuu yihi haddaad ilaahay rumayso ilaahay baan kuu baryo ilaahayna ku shaafiyi doonaa ninkii ilaahay buu rumeeyey ilahay baa subxana wa tacaala shaafiyey waa arrin ilaahay uu ka damacsan yahay in warka inankani uu gaadho boqorka dabeetana waxyaabaa waaweyna dhici doona ay dhacaan ninkii boqorkiibuu u yimi indho la-aanta ku ogaa isagoo indho qabo wax arkaya war yaa indhi kuu soo celiyey qaala rabbi rabbigay baa ii soo celiyey buui qaala walaka rabbun hayri ama rabbi aan aniga ahayn baad leedahay isagaa rabbinimo sheeganayo miskiinkaa daciifkii ilaahay baana fadeexadeeyey subxaana wa tacaala oo muujiyey sheegashadiisaasi inay tahay been aan sal iyo raad toona lahayn wuxuu ku uhi rabbii wa rabbuka allah aniga iyo adigaba allaha khaaliqu samaawaati waalardiina ayaa rabbi inoo ah ma sidaasaa madaxtinimadeed ku socotaa buuhi rabbinimadan iyo uu sheeganaya iyo sixirkan iyo waxaan oo dhan isba xaqiiqada waa og yahay wuxuu doonayaa inuu madaxtinimada uu ku ilaashado iyo mulkiga ninkiibuu qabtayoo waa la ysu jebiyeyoo ciqaab buu ku bilaabay waxaana lagu khasbay in laga yeedhsiiyo cidda arrinkan bartay wuu sheego wuxuu ihi inan noocaasa meel heblaayo jooga ayaa arrinkaasi i baray ilaahayna sababtiisa igu shaafiyey inankii baa ciidamo loo diro isagii baa la soo qabtay wuxuu yidhi boqorkii markii inankii loo keenay waa garanaya waa inankii isagu uu soo xushaye maskax badnaanta iyo fahamka uu ku soo xushay si uu saaxirkiisa sixirka uga reebo o uga barto inankaygiiow sixirkaagii heerkaasi u gaadhay soo maha inaad kuwa indhala-aanta ku dhashay bogsiiso kuwa baraska qaba watafcal waxaad samayso
isagu sixir buu yaqaanaa arrinka inankana sixir ayuunbuu ku fasiray waxaa heerkaa iyo darajadaa gaadhsiiyey sixirkii dee uu baranayay inuu yahay ayuunbuu isagu u qaatay inankuna sixir shaqo kuma leh sixirka iyo saaxirkaba labadaba beri buu ka yihi wuxuu yidhi anigu waxaa ma shaafiya ilaahay wax shaafiya inankii baa la ciqaabay ilaa ninkii caabidka ahaayee iimaanka iyo diinta sababta ugu ahaa uu tusiyey boqorkii iyo ciidamadiisii qofkuna inkastoo iimaankiisu uu gaadhsiisan yahay waa dhici kartaa in ciqaabku marka uu ka tanbato ee uu xejin waayo in siraha qaarkood uu sheego oo ballankii ahaa in ibtuliita falaa tadulla calaya haddii lagu imtixaamo aniga hay soo tusin cadowga halkaasi ayuu ku jabay cudurdaar baanu u lahaa dee waa la ikraahay waa la dirqiyo la khasbay dhibaatadiiba xamili waayo waxaa la keenay ninkii raahibka ahaabaa isna la soo qabtay waxaa lagu yidhi ila isagaa asalkii halkay arrintu ku aroortay isagaa noqdee ka noqo diintaada waa diiday miinshaar baa la keenay tan looxa lagu kala dilaaciyo halkaa madaxa bartankiisa ayaa laga saaray labaa loo kala jaray laba qaybood qodna dhinaca u dhacay qodna dhinaca u dhacay baa laga dhigay waxaa la keenoo lagu soo xigsiiyey ninkii boqorka ay saaxiibka ahaayeen waar diintan ka noqo waa diiday isagana sidii si leeg baa lagu sameeyey inankii baa la keenay isna diintan ka noqaa la yidhi isaguna waa diiday iimaanku markuu xoog badan yahay habaat buu keenaa waxaanay taasi daliil u tahay iyo calaamad xaqa waa kii boqorkii reer ruum hiraqla weydiiyey markuu nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabada ka wareysanayey hal yarjicu axadu minhum can diinihi sakhtatan lahu qof iyaa ka midii diinta ma ka noqdaa nicis uu nacay iyo cadhooda u cadhooda awgeed wuxuu uhi maya wuxuu uhi haa iimaanku waa sidaa markuu iimaanku qalbiga si fiican u dhex galo ee u hantiyo sidaasuu habaat u keenaa iyo sugnaansho inankii waa diiday inuu diintiisii ka noqdo wuxuu u dhiibay qaar ciidamadiisii ka mid a buurta meel heblaayo ku taalla ee dheer inankan geeya buuhi buurtaas saaro oo dusheeda gaadhsiiye figta u sarraysa markaad gaadhsiisaan waxaad tidhaa war ka noqo diintaada hadduu ka noqdo dee soo celiya isagoo badqaba haddii kale halkaa ka soo tuura sidii bay yeeleen ilaahay buu baryey inankii istacaada billaahi min sharih ilaahay buu sharkoodii ka magan galay allaahuma kfinihim bimaa shita ilaahay waxaad adigu doonaysa igaga difaaca ciidamada ilaahay waa badan yihiin ilaahayna siduu doonu addoomihiisa u difaacay ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu buurtii baa la gariirtay buurtii bay ka soo dhaceen oo wada dhinteen isagina ilaahay baa badbaadiyey markuu ilaahay badbaadiyey waa nin hadaf leh oo meel inuu gaadho doonaya oo diintan ilaahay uu ku arsaaqay iyo xaqan ilaahay uu soo gaadhsiiyey dada kale inuu gaadhaa buu rabaa isagoo lugihiisa ku soconaya u yimi ninkii boqorka ahaa wuxuu ku wari nimankii aan kuu dhiibaan ku raaciyey maye iska daa buuhi kuwaa ilaahay baa igaga filaadae oo iga difaacay koox kale ayuu haddana u dhiibo wuxuu yidhi ixmiluuhu fii qurquur laash saara buuhi laash oo asafiina sagiira baddaa la dhex galo badda bartankeeda markaad marinaysaan ka noqo ku dhaha diintaada hadduu ka noqdo sidii la rabay haddii kalena ku tuura way la tegeen baddii bay geeyeen ilaahay buu baryay allahuma makfinihim bimaa shita ilah waxaad doonaysa igaga difaaca laashkii baa la rogmaday fakhariqu waa ciidankii labaadna sidaasi ayuu ku halaagsamay way qarqoobeen haddana isagoo soconaya buu ninkii boqorkaa u yimi wuxuu doonayaa inuu u muujiyo inaanu isagu ahayn ilaah iyo rabbi toona
waxaanuu doonayaa xaqan ilaahay isaga uu waafajiyey dhibka gaadhaya intuu doonayaba hala ekaadee inuu dadka gaadho yuriid an yudaxiya binafsihi lilaah naftiisa inuu huraabuu doonaya ilaahay daraaddii u huro war maxay faleen nimankii aan kuu dhiibay ilaahay baa igaga filaaday ninkii boqorkahaa buu ku yidhi aan kuu warramee boqorow ima dili kartid adigu waa hiqa billaah ilaahay uu ku kalsoonaaday subxaana wa tacaala kalsooni ilaahay uu ku kalsoonyayba hadalka noocaasa ka yeedhsiinaysa ilaa aada samayso waxaan ku amrayo wuxuu amrayaa oo wax muujin doona ninkani rabbinimadan iyo ilaahnimadan uu sheeganaya inay beentii tahay waxba aanay ka jirin waa maxay waxaad ii amraysaa dadka oo dhan isu soo ururi buuhi kullahum dabeetana geed jiriddii igu xidh leeb kala bax booshkayga khud sahman min kinaanati leebkaa qaansada geli faqul uma qul bismi illaahi rabbi اlghulaam uma arminii waxaad tiraa bismi illaah magaca ilahay baan ku bilaabaya intaasoo qura hadduu dha waxa loo qaadan karaa dee isaga ilaahnimo sheegan jiray inuu isagu isu jeedo rabbi اlghulaam raaci inanka yar rabbigii inaanu isaga hayna waa la og yahayo inanka yar waa kaa caddaysanaya ee dadka la hadlaya kule waa kan rabbigiin maahee rabbigiin waa kaydin abuuree ee macbuudka xaqa ahee iskaga hadha kan saas samee buu ihi ninkan inanka yari hawl buu ku hayaa wuxuu is yidhi allayla imikaad heshay fursadaad kaga takhallusi karto wuxuu isagu isleeyahay inankaa markaad disho khalaas kurbadiisa iyo dhibaatada xaggiisa kaaga furan hadidaadda ku haysa mulkigaaga iyo madaxtinimadaada arrinkaasi waad ka ladaysaa waad ka gamaysaa dadkiibuu isugu yeedhay inankiibuu geed ku xidhay leebkiibuu qaatay qaansadii buu suday bismi illaahi rabbi اlghulaam buu ihi wuu ku rideeyey halkaa dhafoorka ayaa inankii leebka uu kaga dhacay halkii markaa uu leebku kaga dhacay buu gacanta saasi u saaray xanuunkii iyo damqashadii deetana uu dhintay isagu wuxuu islahaa khalaas markii inankii yara naftu ay ka baxday tanafasa sucadaa aad iyo aad buu u farxay oo wuxuu islahaa alale dab kugu baxaayey ayaad iska debisay daad kugu soo socdeen waad iska moostay dadkii meesha lagu soo ururiyey waxay yidhahdeen aamanaa birabbi اlghulaam aamanaa birabbi اlghulaam aamanaa birabbi اlghulaam dagaalku isaga iyo inan qura waliba inan yar ayuu ka dhexeeyey dagaalku wuxuu noqday bulshadii iyo mujtamacii u talinayay in badanoo ka mida iyo isagii mid ka dhex taagan buu maanta noqday waana hadafkii inankaasi u socday ee naftiisa u huraayey inay dadku gartaan kare inaanu rabbi ahayn rabbiguna inuu yahay kaa magiciisa wixii lagu sheego ee loo qabto uu qabsoomayo ninkii boqorkaabaa loo yimi waxaa lagu yidhi wax allaaliya wixii aad ka digtoonayd baa dhacay inanka yar sababtaad marba u madaluufinaysae inaad disho aad u doonaysay soo may ahayn dacwaddiisu dadka inaanay gaadhayba aamana annaas ma dadkiina haa markaasuu yihi godadu waaweyn qoda oo halka sekaduhu ay ku dhammaadaan meel kastoo sekada ay ku dhammaato god weynka qoda godadkii baa la qoday dabna waa laga oogay dadkii baa loo yeedho kuyu baa la soo geliyey dadkii muuminiinta ahaa dadkan iimaanka waaba ku cusub yihiin laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala haddana sugay wuxuu yihi dadka halkaa kuyu u soo geliyo ka noqda ku dhaha diinta aad qaadateen ka noqon waayana godkaasi ku tuura ama isku tuur dhaha dadkii dabkaasay ka doorteen kufri iyo gaalnimo dabkani waa cadaab adduunyo adduunyadubuu qofku ka tegayaa adduunyada dadkeedubuu ka go-aya laakiin allah xaqa ka go-i maayo qofku laakiin hadday kufrii lahaayeen khaaliqa xaqaa bay ka go-i lahaayeen dabkan mid ka daranna way geli lahaayeen
waa naaru jahannam. gabadh baa markaa la keenay ilmo yar sidata. gabadhaasi markay godkii soo dul istaagtay waa ku dhici weydayoo dib bay u yaro faagato dib bay u baxday. ilmihii yaraa buu ilaahay ka hadliyey. waxaynu xalqada hore ku soo maray nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yihi lam yatakalam fi lmahdi ilaa alaaatun, iyagoo dharabtii ku jira oo mujo ah saddexun baa hadlay. waa nebi ciise iyo ghulaamu jurayj, inankii yaraa ee jurayj lagu masabiday. ka saddexaadna waa kan. kuwo kalena waa jiraan, laakiin nebigu hadalkaa wuxuu yihi markii saddexdaasunuu ogaa. mar dambe kuwo kalea nebiga calayh isalaatu wasalaam loo sheegay. ilmihii yaraa ee xambaarsanayd ee weli aan hadalkaba baran buu ilaahay ka hadliyey. wuxuu ihi yaa ummaah isbirii fa inaka cala alxaq. hooyo sabir, xaq ayaad ku taagan tahay buu ihi. ilmaha yar buu ilaahay sabab uga dhigay inay ku adkaysato ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo xaqa ilaa ilaahay ay la kulanto iyada oo xaqa ku taagan. qisadani waa qiso markaa la yaab badan, cibar badan baa ku jira. asxaabu اlukhduudka lagu sheegay aayadda qutila asxaabu اlukhduud ay lucina asxaabu اlukhduud, waa ninkaa boqorka iyo ciidamadiisii godadkaa qodee dabka ku shidee dadka muuminiintaa ku gurayay. dadkaasina dembi kale ma lahayn suu ilaahay sheegay, wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu biاllahi اlcasiizi اlxamiid. wax kale oo dadkaa lagu ciqaabay ma jirinna ilaahay rumeeyeen mooyaane. aladii lahu mulku الsamaawaati wاlard wallahu calaa kulli shayin shahiid. qeybta labaad ee qisada waxaynu ku sheegi doonaa cibarka ku jira qisada, faa'iidooyinka, casharada iyo duruusta laga baranayo. awalan waxaynu qisada ka faa'iidaysanaynaa ana allaha subxaana wa tacaala xaafidun diinahu, ilaahay diintiisa inuu ilaalinayo. in kasta oo dadka ahlubaatilkii ay bataan awooddana iyagu ay lahaadaan, dhici mayso diinta ilaahay inay baaba'do oo cid haysataba dadka dhexooda laga waayo. taasi waxay calaamad u tahay inay dhacdaa qiyaamaha dhicitaankiisa. laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala allah allah, fii riwaayati laa ilaaha ila allah. qiyaamuhu dhici maayo ilaa dhulka laga waayo cid shahaadanaysaba. inta aan xaaladda la gaadhin oo dhan mar walba waxaa la helayaa qaa'im lilaahi bilxaq, qof xaqa ku taagan oo difaacaya oo dadkana ugu baaqaya walow hal qofba ha noqdee. marka ilaahay diintiisa ayuu ilaalinaya. waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala mar walba diintiisa u diyaarinayaa cid diinta u nusraynaysa oo kor u qaadaysa. gaar ahaan diin lislaam, laa tazaalu طaa'ifatu min ummatii cala alxaqi daahiriin, sidaasuu uhi nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam. ilaa waktigaa nebigu uu sheegay ee qiyaamuhu dee uu dhacayaba laga gaadhayo, la waayi maayo dad muslimiina oo xaqii saafiga ahaa baraxa tirnaa ku taagan. طaa'ifa, ninka qurana طaa'ifo waa la idhahdaa, ka badanna waa la dhahda, macnaa walow hal qof ba ha noqdee. waxaanay taasi daliil u tahay alxaqu laa yucraf bikahrati qaa'ilihi wa atbaacihi. xaqa laguma garto oo calaamad uma aha in dadka arrinkaa ku tagsanee madhab uu yahay ay badan yihiin iyo dadka raacsani, bal mar walba ahlulbaatilka ayaa ka badan ahlulxaq, waayo xaqu waa culus yahay. walihaada in badan oo dadka ka midi kuma sabri karaan. wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimuminiin, dadka badankoodu nebi maxamed oo dadaal kastoo aada bixiso ma aha kuwa mu'miniina. in fara badan baa qur-aanka lagu sheegay in dadka badankoodu dariiqii ibliis ay mareen, mar walba ahlulxaqu ay yar yihiin. yaraantuna daliil uma aha baadilka, calaamad iyo astaanna uma aha. alxaqu laa yucrafu birijaalihi wainamaa yucrafu bidaliilih. xaqa raggiisa laguma garto, lama odhan karo waxaa hebel iyo hebel iyo hebel ay ku tegeen baa xaqa.
sheekhii weynaa iyo ninkii kale ee qamaamuurta ahaa iyo waxa ay halkaa ay mareen baa xaqiya xaqa daliil baa lagu garta alxaqu laa yucraf bikahrati qaa'ilihi wainamaa yucrafu biburhaani waxujatihi walihaada icrif ilxaq tacrif ahlahu xaqa bara horta xaqa iyo dadkiisa keebaa la horbaranaya xaqaa la horbaranaya markaasaa dadkiisa garan karta laakiin haddaad dad barato oo adoon xaqiiba garanahayn aad isaga qaatay iyagu inay saxsan yihiin baadilun baad difaaci doontaa ta waajibkaa waa horta xaqa inaad garato ayna alxaq wamaa huwa alxaq xaqi xagguu iga xigaa maxaa xaqa kadib baad garan doontaa cidda ahlulxaqa ah dadkuna maanta inta badan waxyaabo kale wax ku qiimeynayaan wixii xaqa lagu garan laanahayn way ka mid tahay badnida way ka mid tahay tusaale ahaan da oo ay ka mid tahay fasaaxiyo aftahanimo oo ay ka mid tahay nafci xataa qofku inuu xaq ku taagayo laguma garto nafcigiisa qof baa laga yaabaa inuu diinta nafci badan uu yeesho midna nafcigiisu inuu iskaba yar yahayba daliilu maaha kaa nafciga badan yeeshay inuu cala alxaq yahay kaa nafcigiisu uu yar yahayna inuu cala albaatil qof baa laga yaaba inuu daaci yahay oo qofba aanu ajiibin dacwadiisa aanu aqbalin midna waxaa laga yaaba boqolaal kumanaan gaala ah inuu ilaahay sababtiisa kusoo islaamiyo muslimiin fara badan inuu ilaahay sababtiisa ku hanuuniyo kaas inaanay cidi ajiibini daliil uma aha inuu baadil ku taagan yihi kan dadka badani sababtiisa ay ku islaameen ama ay ku hanuuneenna daliil uma aha in uu cala alxaq yahay nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu uhi kama fi saxiixi اlbukhaari ina allaha la yansuru hada اddiin birajuli اlfaajir ilaahay markuu doono diintan wuxuu ugu nusreeyaa nin faajira oo dembiile ah oo khaldan ayuu ilaahay diintan ugu nusreeya marka iska ilaali waxyaabaha xaqa laguma garto xaqa bidaliilihi baa lagu garta walihaada ilaahay subxana wa tacaala cidda wax sheegata muxuu ku yihi qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin daliilkiina keena haddii aad tihiin kuwa run sheegaya albayinatu cala almuddaci qofka wax sheeganaya caddayn baa laga rabaa walihaada adigu haddii cid aad haddaad cid la dhacdo oo dadaal ku aragto fara badan oo diinta ay u gelayaan amaba se waxtar ilaahay u geliyo sababtooda ilaahay dad badan uu ku hanuuninayo hays odhan intaasi waxay daliil u tahay xaqnimada madhabkooda ee madhabkooda saar miisaanka kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaacu salaf iswaafaqii ummadda qaybteedii hore khayrka badnayd hadduu waafaqo waa sax haddii kalena waxaasoo dhan waa biyo cildhaanshe weeye waxba kama jiraan xaqa laguma garta taasina calaamadu maaha waxaynu qisaan ka baranaynaa mulkiga ilaahay baa bixiya mulki aanu ilaahay sugahaynina ma sugmo qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa ilaahay oo mulkigaadaa iskale cidda doontaad siisa watanzicu lmulka miman tashaa ciddaad doontana waad ka xayuubisa waad ka qaaddaa walihaada qofna yaanu isku dayin madaxtinimadiisa intay doonaysaba ha gaadhsiisnaatee inuu ku sugu dhidabada ugu aaso wax sharciga ilaahay khilaafsan madaxtinimada ilaahay baa bixinaya hadduu ilaahay kaa qaadayo cid kuu difaaci kartaa ma jirto waddo kastoo aad marto haddii ilaahay uu ku ilaalinayo kuu sugayana cidina kaama qaadi karto ninkaa boqorkaa baleega sixir iyo falalow iyo ilaahnimo sheegad iyo dad la ciqaabo oo abriyaah waxba aan samayn waxaasoo dhan buu doonay inuu madaxtinimadiisii ku sugu dhidibada ugu aaso arrinta noocaasi may dhicin mulkigiisii wuu baaba'ay ilaahay baa subxaana wa tacaala ka xayuubiyey oo ka siibay waxaynu qisaan ka baranaynaa qofku inuu ilaahay subxana wa tacaala diintiisa iyo xaqa u huri karo naftiisa inuu huri karo laakiin taa macnaheedu muu yahay inuu isagu isdili karo sida kuwa maanta isqarxiyoo kale ee odhanaya naftayadii baanu ilaahay daraaddii u horray maya isma dili karo qofku naf huriddu waa qofku inuu sameeyo ficil
ama go-aan inuu qaato sababi kara cadowga ilahay inuu gacantiisa ku dilo. hadihi atadxiya. laakiin qofku inuu isagu naftiisii dilo cadowga uu isaga horeeyaa mid bannaan maaha. culimada qaarkoodna waxay dhahan sida sheekhu albani oo kale geesinimo xataa maaha. geesinimadu dee waa haddaad dagaalamayso inaad hubkaaga qaadato oo sida ragga aad u dagaalanto. deetana labuun baad u dhaxayn dee in cadowga gacantooda aad ku baxda iyo inaad dee badbaado. laakiin markuu qofku isku xidho waxyaabahan qarxa waa qof markaa baqanayo isla yaan lagu qabanin ama yaan xabad lagugu dhufanin ama meeshii baad gaari waayi dabeetana go-aansaday inuu cid walba naftiisa uga horeeyo. asxaabu tafjiiraat awalu man yaqtuluuna anfusahum. cidda u horeysa ee qofka waxyaabaha qarxa isku xidhay uu dilaya waayo waa naftiisa. yaqtulu nafsahu. ilaahayna muxuu qur-aanka ku yidhi? ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi walaa taqtuluu anfusakum. waa war ilaahay, waa waxyi cad. naftiina ha dilina. bal qur-aanka si walba u baadh oo xadiidka si walba u rogrogo meel walba kaga kaala oo aayad kaloo khasisaysa oo xaaladaha qaar ka saaraysa o odhanaysa xaaladdaa qofku wuu isdili karaa. hadduu cadowga waxyeelaya wuu isdili karaa. haddii la ciishiiyo si kale aan waxba iskaga celin karin wuu isdili karaa. bal aduu ka soo saar abadan lan tajid. haddaad waxa weeyaan 100 sanood aad baadho wallahi inaanad ka soo helahayn. maafi wax allaale iyo waxa lagu qaabila laga hor keeno waa ra'yun. walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima walaa tulquu biaydiikum ila tahluka. qofka naftiisa dila sababtu u dilaya waxay doonaysaa ha noqoto. haddii doonaysa ilaahay daraaddii ha noqoto. nebigu isagoon kala qaadqaadin bal wuxuu ka yidhi dhegeyso. waxaa bukhaariya muslimba ay wariyeen nabigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qatala nafsahu bishay cudiba bihi fii naari jahannama yowma alqiyaama. qofka naftiisa shay ku dilaa shayga laftiisii baa lagu cadaabaa lagu ciqaabaa naarta jahannamo dhexdeeda. hadduu sun cabay sun naara buu cabbayaa. hadduu xabad isku dhuftay xabad naara buu isku dhufanayaa. hadduu buur iska soo tuuray buuraha naartuu iska soo tuuraya. hadduu isqarxiyey mutafajiraadkii waxyaabaha qarxee naarta ilaahay ugu diyaariyey ayuu isku xidhayaa naarta dhexeedu laba qarxaya isagoo markii horeba naar ku jiro haddana qarxaya. saxaabadii rasuulka fahamkooda u fiirso. qofku jihaad baa ha ku jiro arrinkiisu ilaahay daraaddiiba ha noqdo naftiisa marnaba inuu dilaa inaanay bannaanayn ayaa aayadaha qur-aanka ka fahmeen. dagaalkii khaybar markii lagu jiray saxaabi la odhan jiray caamir alakwac ayay seeftiisii ku soo noqoto. seeftiisii buu isla helay. hadda waa tiisii iskumuu wadin. cadow buu ku waday seeftii buu isla helay. dabeetana saxaabadii maxay yidhaahdeen? wuu dhintay. baطala camalu caamir inahu qatala nafsahu. hadduu isula qasdiyi lahaa talo maxay odhan lahaayeen? isaguu isku dhufan lahaa oo odhan lahaa waxaan ahay istishhaadi ilaahay daraaddii naftiisa u huraaya. waxay idhaahdeen ninkii caamir la odhan jiray camalkiisi wuu buray waayo naftiisii buu dilay. naftiisa inuu dilana kuma talagelo. lihada nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi muu burin camalkiisi waayo naftiisa muu dilin ee seefta iskuma wadin. cadowga ayuu seefta waxa weeyaan ku waday. dhinac kale haddii laga eego arrinkaasi maanta muxuu faa'iido leeyahy? dad abriyaa baa la laaya waxba aan samayn oo xataa aan muxaaribiin iyo muqaatiliin aan ahayn. dumar leh, caruur leh, ciidan aan ahayn. mararka qaarkood dad muslimiintu ammaan ay siiyeen ama heshiis ay kula jiraan. heshiis nabadgelyo. kadibna wax badanna lama gaadhsiiyo cadowgii rasmiga ahaa. kadibna muslimiintunbaa laga jaraa oo qofka san yeelay iyo ciidamada uu ka yimi maaha kuwo difaaci kara muslimiintii. nebigu calayh isalaatu wasalaam kacab ibnu ashraf ninkii la odhan jiray ee yuhuudiga ahaa ee dhibay aada allah warasuulahu rag muslimiinoo soo dil u diray. laakiin raggii dee may dhuuman oo may baxsan. dabeetana cadowgii muslimiintii intuu ula yimi muu gumaadin. waxay lahaayeen sanad qunyar bay guryahoodii iskaga soo noqdeen oo ay ciidan baa ka dambeeyey cidda iyaga ka daba timaada muslimiinta ka difaacaya. laakiin taasi maanta iyadoo aanay jirin baa sidaasi la yeelaya.
islaamkiina wuxuu u keenay sumcad daro dhageyso khudbada uu ka galay sheekh maxamed ibn salih al-uthaymin rahimahullah ta'ala tafjiiraad ka dhacay ama qaraxyo mar ka dhacay sacuudiga waqti hore oo 20 sano ama ka badan ay ka soo wareegeen hada al-ajiib uu sheekh al-yawma yaqtuluna ahla ad-dimma wa ghadan sayaqtuluna ahla al-islam maanta waxay leeynayaan buu gaalada de magangaliyada la siiyay dhulka islaamka loo ogolaado inay nabad ku joogaan barina waxay leeyn doonaan muslimiinta maanta Soomaaliga iyadoo qaraxyadii iyo layntii inta u badan 99% ay ku dhacayso dadka muslimiinta ee shahaadanaya subhanallah wa firasatu aalimin wi wa qissa waxaynu ka baranaynaa qofka doonaya inuu ilaahay diintiisa u nusreeyo himma caaliya waa inuu yeesho qof meel sare hiigsanay waa inuu noqdo oo matabaadka iyo waxyaabaa lagu turunturoodo hortiisa la dhigaya markiiba aanay karaar jabin culuul himma loo baahan yahay dadka mabaadi ay lahaayeen ama xaq noqoto ama baadil ha noqotee faafiyey meel mariye socodsiiyey waa dad sabir iyo culuul himma leh adkaysi iyo hansare oo dad yuhuun loo meel sare hiigsanay inaan ka dhalinyartaan arintaas waa ka muuqata واجبك قفك وأنه دين تيسكو صبره حتى ولو أدى ذلك إلى قتله قفك هدي لرادو قالوا هديك لو القد ليا قال إنك مركا لا يقد دين الإسلام رخصت بوها يستا إنه قال لي ماذا أفك كقرد واقع سوى قلبي كقالوا بي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والرخصت دنوا كتغي كرايو عزيمة وقادا كراه mararka qaarkoodna inuu casiimada qaato go'aanka uu qaato walow halaba dilabay oo ruqsada uu iska daayo ayaa afdala waana sida uu yeelay inankani oo markii la diinta ka noqo inuu afka ka yiraahdo waan ka noqday mid u furan baad gaar ahaan inaga shariicadeena marka la eego laakiin hadaf buu lahayo in isagu haba dhintabe fariintu dadka inay gaadho ayuu doonay al-cilmiga qaarkoodna waxa yiraahdaa al-udhru bil ikrah وشرائعدي هore kuma jirin qofka cudurda ikrah iyo khasabka la khasba looguma cudur daari jirin waa arin shariicatu islaam ay la gaartay samaaxadeeda iyo yusrigeeda iyo fudeedkeeda arintaas ay kamid tahay imaam ahmed rahimahullah ta'ala waqtigiisa wuxuu ku soo beegmay niman boqoraa oo aamini aqeedo xun oo oranaysa quraanka oo hadalka ilaahay waa makhluuq bas hadalkan kale ilaahay waa abuuray ayuu isagana waa abuuray وعقيدة المعتزلة nimankii boqorada waqtigiisa joogay baa qaatay dadkii bay ku khasbeen imaam ahmed dadkii aadka loogu ciqaabo kamida dad badan baa iyagu ruqsada iska qaatay oo yiri afka ka yiri quraanku waa makhluuq iyagoo aan qalbiga ka aaminsan inuu caqiidaan ay wahayn laakiin imaam ahmed arrinka waa diiday waayo wuxuu ahaa caalim yuqtada bihi isaga waa lagu daynay walihaada maalin isagoo xiran waxa u yiminin ninkaas wuxuu ku yiri abu abdullah yow maanta dadku aday ku eeganayaan hadaa tiraahdo quraanku waa makhluuq khalaas aqeedada xun bay wada qaadanayaan wixii aday kugu dhacaya kugu dhacay adkayso marna yaana afkaaga ka soo yeedhin quraanku waa makhluuq waa mid la abuuray halkaaga ku adkayso quraanku hadalka ilaahay makhluuq ma wasifa ilaahay way سإلهي سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهذا الكإلهي وصفة إلهي صفة إلهي مخلوق معه وعلم إلهي مخلوق معه مقعد إلهي بكتشر مقعد إلهي مخلوق معه وحكى له قصان وكبر جواز الكذب في الحرب ونحوها وبنانتي قفك إنه بيان شيء مركا الدجال كتشره بيان تاسو مركا حيلة دجالة وعدوغا ودونيا دبكيسا inuu kaga badbaado dibna ku gaarsiyo qissa waxaanu ka baraynaa wax karaamatul awliya la inay jiraan awliyadu cidda ay yihiin darsi hore ku sheegay alladina aamanu kanu yattaqun dadka ilaahay ka baqa diintana ku toosan inan kan ilaahay subhanahu wa ta'ala karaamaad ayuu ka muujiyay lagamana sheegin inan ka wax mukhalafa hatta markuu dadka daweynay sharciga ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku khilaafay lama sheegin waxaynu ka baranaa ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa dhaalimiinta ah ee wada isbida si ilaahay u kibir jabiyo
rabbi uu tuso taagdaradooda ninkii rabbinimo sheeganayay ilaahnimo sheeganayay boqor madaxana ahaa inankaa yar dilkiisa wadda uu maro hadda isagoo hor taagan oon ka baxsan oon ka dhuumanahayn wuu waayey ilaahay baa awood darradiisa u muujiyey ilaa inanka yari habkii uu yihi waad igu dili kartaa uu maray waxaa kaloo markaa qisada aynu ka baranaynaa qofka muslimka ahi الدعوة إلى الله ونشر الخير دعوة خير كدتك إنه قارسيه إنه الدلال بدن كبحيه وحي كسو قارن وكصبره واصبر على ما أصابك حديب كسو قارن وكصبره وحكى لنا كقاضنا إن المواجهة تحتاج إلى إيمان تحتاج إلى ثبات وشجاعة تذكر لما أود أم الله بادل كإني واجهان dad baa garanaya waxaas inuu baadil yahay laakiin wax kale ay sameeyaan iska daaya afkooda kama oran kara waa baadil waa ka meermeeriyaan inay dadka u cadeeyaan oo yiraahdaan waxaas waa baadil hoos way oranayaan dadka qaar kood haday weydiiyaan waxaas wax sax ma iska ilaaliba ku oranayaan laakiin la yaquuna ala almuwajih awood uma laha baadilka sicad inay wajahaan baadilka sicad in loo waajaho looga hortagaa waa arin u baahan iimaan waa arin u baahan sugnaan xaq lagu sugnaado وارين وباهن شجاعة يجسنمو مناها أرين ضد كردم يا وده هلان إلهي سبحانه وتعالى عدة ودونه وافتشية إما كائنا كاسي سجوا دائرة وحضر كيسا صدا وبادل كا ود الشبيي جاري ربي نمي إله نمي إلا شاكته ضد كنا آمنا ربي جودو بنن كم بقر كائنو يهيد سيدو مواجهي وجهر تجي إن بوح بقاي آنو كم موقت إن ضبيلها فتنة رآني أقلقلين ثبت على الحق حتى لقي ربه سبحانه وتعالى وقد رزقه الله بحسن خاتمة إلهي بحكو أرزاقي خاتمة ونكسا حيث قتل مجاهدا في سبيل الله وحل الدليل سقو إلهي الدرادي وجهاداية ونصرين إلهي سبحانه وتعالى الدين تيس هدف كي أقول لهانا وقاري قفكنا وحا كفلا ولو إساقا لباتبا أدوية كو قاردو ولو isagoo hadhinto oo naftiisiiba hawaayo qaaliga ahayd waxa ku filan inuu gaaro hadafkii wanaagsanaayo uu lahaa nasriga ilaahay marka uu helay nasrigu ma aha in adigu noolaato cadowga aad ka adkaato bal nasriga nooca uu weyni waa in aad ilaahay la kulanto adigoo xaqi sidii u haysta oo xaqi aan ka noqon raadkiisa aan dib u gurin fariintii fiicneed uu doonay dadka inuu gaarsiiyana adoonaysa inaad gaarsiin adoo gaarsiin waata ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ku sheegay inna lanansuru rusulana walladheena aamanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad ilaahay wuxuu ballan ku qaaday inuu nusraynayo rusushiisa iyo muuminiinta kana haqqan alayna nasru al-mu'minin haddana cadawga kama wada adkaadaan حق أي وضعنا لقما وضع أقبله قاربان عدبا الرمين ويأتي نبي وليس معه واحد نسرق إلهي أهلين وامحي نسرق إلهي أهلين وهرتين يقو حقي كسق نادين إلا إلهي لكل مين نسرق إلهي أهلين وإن حقي دتك قارسيين وحجة يكو أوجين خلاص مركاها ورورين حق وضع داني دتكو أقبلين إن أدوه كل ما تحقه دتكنا حق أدقارسيسو انتاسي أيا نصر كوغو فيلان وحين قصان في الأخير كبرنا أن العاقبة للتقوى عدت الدنبئة وناكسن وحا إسكاله عدي إلهي سبحانه وتعالى كبقته وحانا وحقيقوا به قول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم داد إلهي الدين تيسوه لسان إلهي بايدين هيلنا يدين نصرينيا إلهي بانا يدين سقايا وخاتمة يدين وناكينيا نسأل الله سبحانه وتعالى النصر وحسن الخاتمة الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته